macalinka xulka qaranka France ee Deschamps ayaa wali ilaawin eedeymaha uu kala kulmay wariyahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Karim Benzema sanadii 2016. Karim Benzema ayaa ku eedeeyay tababare Deschamps inuu yahay mid midabta kor badan kadib waraysi uu bixiyay sanadkii 2016 isagoo dhinaca kala sheegay in ciyaartoyda xulka qaranka France uu kala xusho qaab cunsuri ah. Haddaba Deschamps ayaa waraysi uu ku bixiyay wargeyska Marca ee ka soo baxa dalka Spain ayaa waxa uu ku muujiyay sida uusan u ilaabin wali dalaacaynta uu kala kulmay Karim Benzema. waxa uu yiri dadka qaar ayaa ka hadli kara waxyaabo ka baxsan macnaha oo dhan marnaba ma ilaabi doono. waxaan u qaatay inuu dhaafay dhammaan xuduudaha waqtigaasi ma dhicin marna inaan u xusho ciyaaryahan arinta oo ku salaysan midab ama diin. si kastaba Karim Benzema ayaanan soo muuqan xulka qaranka France tan iyo sanadkii 2015 sabab la xiriira isaga iyo saaxiibkiis oo lagu eedeeyay fal anshax xumo ah.